السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada waa walaashiin Mansuur. maanta waa videogeeni dhaqaalaha sida ogtihiinba gabdho og waxa soo galay iyo waxa ka baxo gabdho dhexda u xiran tahay oo imaarata isku filan rabo ubadkooda inay u heeliyaan rabo maarata horumar dhaqaale inay sameeyaan kulligeen isku mid ayaana kulligeen isku doonayaan saarno qofba doontiisa maalin ayuu soo koraya. soo dhawaada waa videogeeni dhaqaalaha waa maanta iyo maalintii dhaqaalaha. soo dhawaada gabar abaaya ayaa su'aal isoo weydiisay ama igu tiri walaalay maad video ka soo sameysid maadaama ay jiraan gabdho walaalaha oo sidaan oo kale u fekerayaan. soo dhawaada soo dhawaada YouTube channelkan waxaa looga hadlaa habka maaratay wax loo save gareeyo, habka budgetka loo sameysto. waxaan ku dhahay dhammaanteen maaratay isku hadaf ayaan nahay, isku hiigsi ayaan nahay, isku meel ayaan u wada soconaa. kulligeen doonta waan wada saarana, gabar walba meel ayay kasoo koraysaa, magaalo ayay kasoo koraysaa, laakiin kulligeen dad waxaan nahay isku wada hadafa oo isku wada halgan ah. YouTube-kan waxaan kusoo gudbiyaa fiidiyoyaasha inta badan looga hadlo see wax loo dhaqaalaystaa, sidee maalgashi loo sameeyaa, maxay hooyada maaratay ay dhigi kartaa, maxaysan dhigi karinin, sidee wax loo maamulaa, because adduunyada wax walba maamul ayay u baahan yihiin. shayga ugu adag oo la maamulo maanta dunida aan joognana waa lacag, sababta lacagta maamul aad iyo aad u ballaaran oo muhiim u ay u baahantahay. ogaaw lacagtaada haddaadan si fiican u maamulin adiga maarata jeebkaada ayay ka jeeban tahay, oo mar walbo maamulkaadu xumaado dhaqaalahaadana wuu xumaanayaa. mar walba waxaa noqonaysaa qof bilaa lacag la-aana, mar walbana qof welwel ku nool. abaayo su-aashay isoo weydiisay waxaa ka mid ahayd Mansuurey abaayo imaad kasoo hadashid maxay ahayd gabdho waxaa jira abaayooyina oo maaratay horey maarata daruufo iyo waqtigu uusan u saamixin inay maarata dhaqaalo sameeyaan ama inay dhaqaalo dhigaan ama inay maarata wax meel dhigtaan, oo waqtiga maarata aad iyo aad uga hiiliyey, oo waqtiga maaratay ka dhamaaday, oo maanta maaratay dhaqaale inay sameeyaan ama meel inay wax dhigaan maaratay ay dantu ku qasbayso. horena dee aan ugu baraarugsanayn inay wax meel dhigtaan, in wax la dhaqaalaysto, inay muhiim tahay qofku maarata inuu dhaqaale isku filnaansho inuu gaaro. qofba maalin ayuu hurdada ka kacaa, qofba maalin ayay dantu qabataa, qofba maalin ayuu isku dayaa inuu maarata dhaqaalo sameeyo. marka waxay igu dhahday gabdhahaas inta badan waxay aaminsan yihiin inay maarata waxba dhigi karin, inuu waqtiga maarata ka dhamaaday, inuu maaratay talo meel laga qabto aysan lahayn, talo fara ka baxday, maxay hadda wax ka dhigayaan, maxay wax ka sameynayaan, laba jeer laba maaratay yacni maxaa hadda ka faa'iidaa camal haddaan meel wax dhigo, because shala dhaqaalihii faraha badnaa ay soo geli jiray ima soo galo. marka waxaan ku dhahay maadaama abaayo dhowr mar waxaan ku dhahay inta badan waan ka hadlaa arrintaas, laakiin waxaan ku dhahay waa mahadsantay insha allah waana kasoo sameynaa video. waxaan rajeynaa videogan walaashay inay daawanayso. tiktokana live intaa soo galay mawduucaas waan uga hadalnay, marka waxaan ku dhahay insha allah waan kasoo hadlayaa. marka ogaaw wax walbo maalin ayaa la bilaabaa. weligaa ha isdhihin maxaad isbedel u sameynaysaa. muhiimaddu waa inaa isbedel ka samaysid, muhiimaddu waa inaa ku dhaqaaqdid, sababto qof walba maalin ayuu wax ku dhaqaaqay. wax caloosha hooyo lagala soo baxo ma jiro, wax walba mar ayaa la sameeyaa. haddii aadan shalay dhaqaale dhigi jirin, haddii aadan shalay aqoonin in wax la dhigto, haddii aadan shalay aqoonin sida wax loo dhigto, maantaba ka bilaaw, maantaba ka bilaaw. sababta mar walba oo aad wax samaysid waad ku guuleysanaysaa. mar walba aa wax samaysa adigay faa'iido ku tahay, ha yaraato ha badnaato, tilaabada qaad, because haddaadan tilaabada qaadinin meeshaadi inaad taagnaatid waxba kuuma soo kordhinayso. labada arrin marka haddii la isku fiiriyo waxaa ani ahaanteyda ila fiican inta badanna dadka ay sameeyaan in aad wixii uun sameyso, isku day inaad la imaato. sababta haddaad tiraahda shalay aniga saas ma samayn jirin, shalay lacag ma dhigi jirin, weligay wax meel ma dhiganin, weligay dhaqaalo kama fekerin, weligay wax ma kala habeenin, weligay wax ma gadanin, weligay hanti ma samaysan, maxaa maanta ka gaaraa anoo intaas sano jiro, anoo intaasoo sano reer lahay, anoo weligay waxba dhigin, maanta maxaan samayn karaa, ilmihiia iga koreen, lacag fiican ima soo gasho. ha u fekerin, because haddii aadan shala sameynin maanta sameey, waxa awoodid sameey. ogaaw 10% haddaad dhigtid xataa waa wax adig ku anfacaayo. qasab maahan inaad wax weyn dhigtid. dadku isku mid maahan, dadku isku jeeb maahan, dadku isku dhaqaalo maahan. mar walba qof walba waxaa fiican nin walba tabartaaha la yiri nebiyow maaratay nin walba tabartaaha la yiri ii sheeg iga dhunto mahmaadaas, laakiin nin walba intay tabartiisa tahay ayuu taagsadaa, nin walba tabartaa nebiyow ummadaa. marka
qof walbo intay tabartiisa ta ayuu taagsadaa qofka bini'aadanka laakiin waxaa fiican inuu wax isku day la imaado inuu maanta uu hadduu shalay sameyn waayo inuu maanta sameeyo sababta ogaaw xaaladdaa maanta ku suganta xaalad ka daranaa beri imaanayso ogaaw maanta haddaa dhaqaalahaada uu yaryahay beri wuu kasii yaraanaya adduunka meeshuu usii socdo maalinta ka dambeysa wax cusubaa soo baxaayo waxaa kuu soo haray haddii aa wax yar dhigtid isku day inaa maaragta waxaas yarka aruurisid maalin uunbaad horumar ku gaaraysaa maalin uunbaad maaragtay wax samaynaysaa laakiin haddaa ka fikirtid wax walba waa qaali wax walba maaragtay way sii kaceen wax walba maanta waxba lama gooyo maanta adduunka waxba la sameeyo ma karo gabdhaha ficaya mar horey wax samaysteen gabdhihii ficaya mar horey wax qabsadeen oo aad fiirisid gabdhaha kaa sarreeyo horumar ma gaaraysid laakiin waa inaad fiirisid kuwa adig kaasii hooseeyo oo ah kuwa aan weli ku baraarugsanayn in meel wax la dhigto kuwa aan weli ku baraarugsanayn inay dhaqaalo sameeyaan kuwa aan weli ku baraarugsanayn dhaqaale muxuu yahay kuwa aan weli aan ogeynba dhaqaalaha dhan macnihiisa wuxuu yahay inta badan ogaaw gabadha Soomaaliyeed ma taqaana dhaqaalaha macnihiisa gabar kastoo Soomaaliyeed marka dhaqaale kala hadashid waxay kula aaday talaajada cunto kuma jirto ilmaha dhar looma gado rooti la cunaa anjeela la dubaa halkaasay kula aadaysaa sababta gabadha Soomaaliyeed maba aysan baarinba dhaqaalaha macnihiisa wuxuu yahay dhaqaalaha ma ahan in laga hadlo ilmo cunto loo karin waaye iyo dhar maaragtay la soo gadi waaye iyo dhaqaalaha intaas uu ka baaxad weeyahay dhaqaalaha kelmadda la dhaho ama dhaqaale macnihiisa ma laga wado maaragtay cunto lama soo gado iyo dhar ilmo looma gado iyo bariis la cunaa iyo canjeela ilmaha loo dubaa iyo rooti la kariyaa iyo dhaqaalo waxaas ma aha walaa ani aadaan u yaabaa gabdhaha Soomaaliyeed markii dhaqaale la isku keeno mid walba jikaday kula aadaysaa jikaday kaaga bilaabay war aniga maaragtay ilmahayga canjeelo ma siiyo aniga ilmahayga maaragtay wax kasta u gadaa aniga gurigeyga maanta cuntaa banaanka laga dalbaa waxaas ma la dhaho waxaas maaragtay qofkaas ma noloshaaba iskaga kaa dhexyaacsanba qof waxaata meesha u socday meeshuu ka yimid ba aan aqooninba waxaas wax lagu hadlo ama wax maaragtay public lala soo istaaga ma ahan ani saa rabaa u noolaha iyo wax aniga iskama hagrada iyo aniga dhuunta isma qabta iyo qofna kuma dhihin dhuunta isqabo qofna kuma dhihin wax iska hagro qofna kuma dhihin maaragtay wax canjeelo iyo rooti cun qofna kuma dhihin canjeelo dub qofna jiko kama hadlin just waxaa laga hadlay inaad budget samaysatid inaa og tahay maxaa ku soo gala maxaa kaa baxo intuusa kaaga baxaa lacagta ugu badan waxay nooga baxdaa meelaanaan aqoonin maalaayacniya nooga baxdaa waxaanaan u baahnayn adeeg maanta dhan layska soo gadaa dukaan maanta dhan layska taagan yahay dhar ilmo maanta dhan la gadaa lasii tuuraa lasoo wado waxaa dhaqaaleheen ugu badan oo gabdha burburiyo waa taas duruuc armaajooyinka naga buuxiyey oo maanta dhan lasoo gadaayo oo hal aroos haddii la xirta la leeyahy wuu qarxay maanta dhan maaragta bil walba intaasoo dhar oo lasii wado lasoo wado haddaa maanta dhan ka war u fakartid maxaa soo baxay maanta dircee soo baxay maanta qamaarkee soo baxay maanta go-ee soo baxay ani waxaan fahmi waaye gabdhaha sidaas u dhaqmo dharka intay geeyaan intaysa ka helaan enerjiga iyo xoogga ay ku dhaqaan sababta guriga mas okay marka ilaahan kugu dhaariye adiga hadda qof weynaa tahay oo ilaahay aqli siiyey oo ilaahay maaragtay oo qof weyn oo aqli lahoo muslina ka dhiga waa ogtahay in xataa qofka muslimka aan loo ogolayn maaragtay inuu wax ku dheelo oo dad badan oo masaakiin dhibaataysan ay jiraan adiga faamilkaada ehelkaada aa laga yaabaa boqolaal ka mid maanta inay baahan yihiin oo see rabaa nolosha aysa haysan labadaada waaridaa laga yaabaa maanta wax allaala waxay rabaan inaysa heli karin ase adigana waxaa ku jirtaa maraa sii gada iyo maraa soo gada iyo maraa tuurta iyo maraa keentid iyo maraa sii jeeda saa 100 meel dayn lagaaga leeya marka qofkaasoo kalaa wuxuu ku leeyahay aniga saa rabaa u noolahay aniga waxaan rabaa cunaa waxaan rabaan gataa dhaqaala darrada liidiin sheegaa gabdha waa midaas inaa waxaa rabta iska gadid inaa maanta dhan wax lee sii gad wax lee soo gadid inaadaba aqooninba lugahaada iyo gacmahaada kala aqoonin meel walba lugahaada ku geynayaan iyo gacmahaada waxay qaadayaanba maba la socotidba qof adiga dhan isku dhex yaacsanaataa qof bilaa kontarool u noolaata oo kontaroolkiisa la socon oo wuxuu raba iska sameeyo taas nolol ma ahan taas ma ahan wax qof weyn oo meel inta la soo istaago uu dadka dhex sheego ama uu maaragtay dhaqaalo u fahma ma ahan laakiin dhaqaale waxaa laga wadaa qofka dhaqaalaha yaqaano ama qofka loogu talagalay inuu dhaqaalo samaysto ama qofka loogu talagalay inuu dhaqaalo ka hadlo ama qofka loogu talagalay waxa la dhaho dhaqaale macnihiisa fahansan waa qof og waxa soo galo iyo waxa ka baxo waa qof og maxaan u baahanahay iyo maxaan ka maarmaa waa qofka og maxaan u baahanahay iyo maxaan rabaa labay kala tahay waxna waa waxa u baahanta waxna waa waxa rabtid waxna waa waxa ka maarantid waxna waa waxaada ka maarmin gurigaada kiradiisoo kale waa qasab
cuntada inaad soo gadato waa qasab laakiin maalin walba inaad dhar soo gado qasab maahan aroos walba inaad dirac cusub ku aado qasab maahan maalin walba go inaad soo gado qasab maahan oo 20 go 40 go aa qabtid maalin walba inaad daah cusub soo gado qasab maahan waa waxa adiga rabtid laakiin waxa u baahanta maahan markaa ogaatid maxaa u baahan tahay iyo maxaa rabtaa horumar badanaa sameynaysaa dhaqaalahaada isbedel badanaa ku imaanayo wax badanaana faa'iideysaa aan ogaano lacagahan tirada badan oo naga baxayo meeshay ku baxayaan ogaada maanta waxaa haysatid berri ma sii haysa doontid caafimaadka intuu gaaraya lama ogo lacagtaa maanta haysatid berri inay sii soconaysa lama ogo haddaa maanta shaqaysa saacado berri waxaa laga daruurta inay kuu saamix weyso haddaa maanta shaqaynin oo maaragtay ciir qadat waxaa laga yaabaa ciirta maalin maanta ka dambeysa waartan waa lasii yareynaa maalin maanta ka dambeysa nolosha way sii adkaane adiga meeshii lagaa rabo maalin maanta ka dambeysana horumar sii gaartid sanadba sanadka ka dambeeya dhaqaalaha sanadka hore kusoo galaya sanadkan waa inuu ka bato 2022 hadday 2000 kusoo galaysay 2023 2200 ama 2500 waa inay kusoo gato sanadba sanadka ka dambeeya waa inaa kor usii socoto muhiimadan waxaa waa waxa kaa baxaya inay yaraadaan waxa kusoo galayana bataan see ku yaraanaya waxa kaa baxaya inaa budget samaysatid oo xisaabtantid haddaadan xisaabtamin waxa kaa baxaya ma yaraanayaan laakiin aan iska dhaafna deynta faraha badan ogaawna qofka haddaan badeen lagu lahayn qofkaas ayaa la dhahaa qofka kaliya oo la dhihi karo waa qof dhaqaalaha yaqaano sababto qof deen lagu leeyahay dhaqaale maba yaqaanaba qof maanta dhan asaga miinus ah oo maanta dhan konton deen loo haysto qofku waa inuu dhihi karo aniga $1 la iguma lahan oo wixiisa haddaadan xataa hanti samaynayn haddaadan xataa dhaqaale samaynayn haddaadan xataa rabin inaad dhaqaale samayso qof walba looguma talagelin inuu dhaqaale sameeyo walba noqo qof si habi u noolo bilaa walwal nool oo waxa ku soo galo wax yar oo kugu filan ka dhigo qof aan deyn lagu lahayn qof markuu wax haysto wuxuu u baahda gato hadduu lacag haysan iska dhaafo because caawa haddaa dhimato xataa laguma duugi karo ilaa deynta lagaa dhiibo marka please waxaan kaa codsanayaa inaa maaragtay fikirtid inaa dhaqaalaha maaragtay fiiro gaara u yeelatid inaa horta fahamtid maxaa laga wadaa wax dhaqaaleyso maxaase dhaqaalo laga wadaa qasab maana hanti badan inaa samaysatid dadka qaar xataa waxaa laga yaabaa maanta hal guri ma lahan qaar waxay ku leeyihin ifka lagu dhaxal maxaan ku falaa kiraa ku jirta asaa waxaa ka hadlaya ifka lagu dhaxal goormaan sameynaa facaa waxay ku tirtamooyaan inay waxay haystaan waxay u baahan yihin wax ka badan ay samaystaan 5 sano mar hantidooda kor u qaadaan adna waxaaba haysanba daruuriyaadkii kuugu muhiimsanaa oo nolosha ay u baahneed oo ah meeshaa ku hooyanaysay marka adoo kiro ku jiro horta maxaa ka hadlaysaa adoo kiro ku jiro maxaa ka hadlaysaa cadaanka hadda u fiirsada la sheekaysto qof walbo cadaan wuxuu ku leeyahay guri inaan gataa rabaa ama gurigeyga anaa iskale waa waxa ugu hooseeya qofka bini'aadanka laga rabo inuu lambar 1 sameeyo horta inuu kiro oo ka koro oo guriga asaga leeyahay hantiyo uu dego haddaa xataa waxaa cunto weyso gurigaadaas yaxanay cidna kuma ogo qof waa aragteen social media inta gabar aan arkeyno oo ku dhaysa kiraa liigu leeyahay meelaan dega ma haysto gurigiyaa leega xirtay banaankan jiifaa buul iyo meel jajaban iyo marka bal isku day inaa maaragtay gurigaada xataa adiga ay yeelatido asaa guri ku yeelan lahayd falkeeda aagisid oo walaashii Umu Mansuur oo idin leh videoga xigay intaa ku kulmi doono khayr ayaan idin rajeyna waxaan kaa codsanaa like subscribe comment and share inta inaa noo samaysid halgankeena 10,000 subscribe ayaan ku jirnaa adiga waxba kaama dhibeyso anigase wax badan ayay ii taraysaa assalaamu calaykum